السلام عليكم كسو دوادا إذا ماذا قرأك الصوماليلاند مدحوينها قرأك جمهورية الصوماليلاند وفتيدين للسعودية هي دروينة sida aad u daawan doontaan barnaamijkan aan idiin soo jeedinayo ciidamadan aad daawan doontaan wixii jamhuuriyadda Soomaaliland la saaxiibi oo ku farxi doona cadowga jamhuuriyadda Soomaaliland cadowgeeduna aad iyo aad uga dhexi doona ama dhirbaaxo aad iyo aad u culus ku kala kulmi doonaa daawada daawadayaal sida aad u aragtaanba ciidamadu waxa weeye ardaydii waa ardaydii weeyaan imika tababaranayay waa niman yaryar mutacalimiina jaamacada ka wada qalin jabiyey ilaahay khayr ha siiya dabeetana waxbarashadii ay dhammeeyeen iyo mutacalinimadii waxay yidhahdeen ciidanka qaranka Soomaaliland ayaanu gelinaynaa oo idinka arka toddoba jir baa ugu yar 23 jir baa ugu weyn ilaahay khayr ha siiyo waxa ay bacadkaa ugu baxeen halkaa ugu baxeen si aynu nabad iyo kala dambayn iyo wanaag ugu wada noolaano kulligeenba مسبحي بقى بصومري مدحوينها جمهورية الصوماليلاند مسبحي waxaa ku xiga generaalkii ciidamada qaranka Soomaaliland Mustaqtaani salaam bay ka qaadan doonaan ciidamada qaranka Soomaaliland si aad ula socotaan RRUD weeyaan waxay markaasi ama waad ku dirsan doontaa ama waad ka dhexi doontaa ila daawada
dhulka ayaa dowladda markuu la idinku qaban doonaa dhulkaa gariiraya nimanka dhalinyarada ah ee xoogga iyo waxaan kuuli fitnesska heerka ay ka gaadheen aad aragtaan dhulka waxaad moodaa in waa gariiraya dhulka noociisa culusiyo ku dhacay gudihiisa maasha allah dhaha maasha allah من غير كود يوم إلى حافتي سي على وتيس لأن خرب كل إلى قاضي يقول دعوة سوا كل خرب كان جمهورية الصومال لأن هالشيء dhulka gariiraya music baa laga yara qabtay imika ama aanu ka yara qabanay dhulka gariiraya dhulka waad aragtaan dhaska iyo boorka iyo siigada meesha ka kacaya dhulku la yaab ma leh min xoogaa maraya oo fita dhulkii baa yaabay aabba yaabad maqli jirtay dhulkii baa argagaxay وعلى أوتو برونيا واحد اللي هذا سيلف ديفنس أما نفط هذا الدفاع فور إكزامبل مرة رصاص كنا ما تهوب كنا ما ضو هديك عنت اللي شوي ما جو سيدا ضو أركتني ما كانوا عنت رواو ديار مريا يصير تشوك كاقب بحنا يعني وحركة ديارة علماء كوان علم كقرن كجمهورية سومالان علم كبوليس كجمهورية سومالان يقولوا كتيسان دفاع قرن كسودو ما مين waxaan ku soo dhaweyn doonaa taliyaha ciidanka booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyo guuto maxamed aadan saradi والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحوينها جمهورية الصوماليلاند مدن موسى بيح عبدي وسيرة عدة كجوجته تلياش عيدا مدى كالدوان ورساب قبل كمرودي تشيح مدحنا كليها هالكن جوجته إيا مرتي شرفته عيدا مدى كالدوان هالكن سود مقدي ديارسن ملتريغا بوليسكا iyo kuwa maaragtay ardayda kala duwan ba ah
waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mudane madaxweyne, iyadoo 18 May ay qarka inoo soo saarantay oo 2 cisho qura ay naga xigto, maanta oo ay tahay bisha 16 oo halkan maaragtay wafdigaad hogaaminayso aad ku soo booqatay ciidamadan kala duwan, iyadoo ay ka mid tahay inuu diyaargarowga 18 May oo la khafiifiyey cudurka coronavirus-ka awgeed, iyadoo quwaddii ballaadhnayd aynu soo bandhigi jiray aynu khafiifinay. waxaa runtii halkan sidii korneelkii iga horreeyay sharaxay, halkan imika jooga ciidanka booliska qayb ka mid ah oo gaadiidkooda gaashaamo wata, iyo ciidanka milatariga oo kala duwan, arday leh, guuto leh, guutadii gaashaamada taangiga leh iyo tignika kaleba. maalintaa madaxweyne inagu soo dhow oo ah anoo fursadda ka faa'iidaysanaya maalin inagu weyn, aan u malaynayo cid kasta kuwa dhalan doona iyo kuwa maanta noolba xusuus weyn inagu leh, dhiig badani soo daatay, hanti badani ku luntay, dadka reer Somalilandna qof ilaabi kara aanu jirin, ayaa waxaynu maaragtay xuskeedii aynu halkan uga sii diyaargaroobayna. anigoo taa ka faa'iidaysanaya, ciidanka booliisku madaxweyne kelmad kooban waxaanu u diyaargaroobaynaa insha allah inaanu isbeddel weyn samayno oo aanu reform ku samayno oo aanu arday reeroo saraakiila soo saarno, iyadoo kulliyaddii imika aad furi doonto dhowaan dhalinyaro yaryar oo aan balwad lahayn aanu diyaarinay, gaadiid badan oo taladaadii iyo maskaxdaadii diyaargaroobeen, isagoo ciidanka qaranku maanta naga caawiyo wax badan oo arrimaha gudaha ah oo ay ku mahadsan yihiin. insha allah sanadka dhow soo socda waxaan u diyaargaroobi doonaa inuu ciidanka boolisku intuu isbedelo ta gudaha ka adkaada insha allah, inaanu ciidan birmada oo adag aanu dhisi doono, ciidanka milatariga insha allah iyagana caawiya. waxaa kaloo raba inaan halkan kaga faa'iidaysto kelmad digniina u diro kuwa gudaha had iyo jeer cadowga gudaha ku jira, noocuu doonaya ha ahaado kuwa caalamka o dhan cadowga waa, ha ahaado kuwa kriminaalka ah, ha ahaado kuwa miishaarintae nabadgelyada waxyeela. ciidanka booliisku nin cid kasta cid ka baxsan kartaa ma jirto, ishana uu ku haya. insha allahu Somalilandna waxaanu rajeynayaa inaanu ka dabagoyno waxyaalaha noocaas. waxaan kusoo gabagabaynayaa maadaama xuskii maydu inagu soo dhow yahay, waxaan ciidanka booliiska jamhuuriyadda Somaliland anigoo afkooda ku hadlaya mudane madaxweyne, waxaan hambalyaynayaa maalintaa inagu soo socota awgeed ciidanka booliiska iyo maaragtay saraakiishooda sare, saraakiishooda hoose, saraakiil xigeenada, askarta maaragtay erfleyda iyo dableyda iyo sareeyayaashaba. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaana ilaahay uga rajaynayaa maalintaa xigta inaynu bashbash iyo barwaaqo ku gaadhno. waxaan mar labaad ku soo dhaweynayaa munaasabadan suu kelmadiisa uga idhaahdo uguna soo dhaweeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, taliyaha guud ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland sareeyagaas Nuux Ismaaciil Taani. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مدحوينها جمهورية Somaliland أنا تليها جود عندما قلب السيدة هنا قلها وزيرنا تلياشة عندما ذكر الدول سراكيشة يوم معلمينها كل لها عندما سراكيشة عندما ذكر الدول يقرنك يقرب كسيدة الفلي أن سراكيل حجينك الفلي ده يتبلي ده قوفتك بصراً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كذب